علي عمر قوليد oo kamid ah ganacsatada caanka ee Soomaaliland una dhown daloola arrimaha siyaasadda lana hadlay qaybaha kala duwan ee warfidiyanada ayaa si kooban u dul istaagay ugana warramay xaaladda guud ee dalku waqtigan marayo waxaana uu taasi u diray ugu horeynba labadii arday ee dhawaan ay dirirtu ku dhaxmartay deegaano kamid ah gobolkaasi Sool markii ugu horeysa waxaan taasi u dirayaa dagaalka ka dhacay Sool iyo geerida foosha xun ee maqalay ee sokeeyaha isku dilay Sool waxa Ilaahay uga baryaa intii dhimatay naynu Allah u naxariisto waran ka talina inta nool ganacsade Cali Cumar ayaa si kulul uga jawaabay hadallo dhawaan ka soo yeedhay siyaasi Ismaaciil Hurrabuuba oo kamid ah hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani Ismaaciil Buuba oo nin weyna rag ugu madakarsan dadkana family qiimo lana ka yimid ayaa wuxuu ka hadlaa ayaantan waxyaalo badan oo dadka yaryar soo koraya aad ugu falxun qabyaalad leh oo kala qaybin leh waxaan leenahay Ismaaciilo anu raga family-giini aad u yaqaanay wax isku yihiin iyo aabahay Mahdi sida isku ahaayeen iyo dadkaad ka timid duntooda markaan eego iyo da'da tahay waxaan ku oran lahaa kala qaybinta ubadkeena soddon jirka kada waana kugu foolxumo waxa kale oo muhiim uu ku tilmaamay Cali Cumar ku soo celinta gacanta dawladda kaydka amaha shidaalka ee magaalada Berbera ox bishan iyo madaxweynaha Musabbixi soo saaray wareegto inay haamihii dawladda gacanteeda lagu soo celinayo waxaan qabaa oo muhiim ah kaydka qaranka in lagu celiyo gacanta dawladdu waa muhiim wixii private sector ka galayna in wax laga siiyo waxoogii loo celiyana waa muhiim waxaan taana oran lahaa war gacmo wada jirba wax ku qabtaane in haamaha sharaf lagu wareejiyo dadka wixii ka galana la siiyo buu hadalka ku dhan yahay hadalka ganacsade Cali Cumar Guuleed oo dhinacyo badan taabanayay ayaa dambiile qaran ku sifeeyay Cornel Caare oo dhawaan ka goostay ciidamada qaranka ee Soomaaliland haddaynu Ilaahay ka baqano Caare waa dambiile qaran cidna looga baqi maayo iyo wixii la midiba waxaan la taana wariyaan dadka la lugoyne taariikhda kama dhicin nin qori inta soo qaato u talaaba meel kale oo ku soo duulatane halkaan waxaan la Caare wixii laga yeeliyo xukuumadda Soomaaliland iyo madaxweynaha iyo militariga dadka xoogga oo ku soo jeedno soo jeediyaashan ay dhahdaan lagu hurdayay u taala taana loo daayo sida ugu dambeyntii waxa uu ka deeriyay qabyaaladda oo maraysa meel aad u hooseysa sida uu sheegay Cali Cumar Guuleed qabyaaladan daroortay ee maraysa sub client qabyaalad aad u hooseysa qarannimada aynu ka hadlayno war gacmo wada jirba wax ku qabtaane inkastuu nin geesi ragugeed adeegiya haddaan garabka lala qaban guri oodi maayee war shantii nin u kala dambeeyay Musabbixi u dambeeyay maanta madaxweynaha maanta shantiiba waa laga daba qaylinayay qofku war ha ka luminina dawladdiin iyo madaxweynaha ina maamulaya kolba kii qabta kalsoonida dadka inuu haysto oo lagu raaco waxa sax ah